بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada xalqad cusub iyo insha Allah BCY TV waxaad halkan muuqaal ku aragtaan insha Allah biidnillahi kariim ku saabsan wadanka India iyo waxa dab ka baxaya oo afartii daqiiqaba uu dhimanayo hal qof afartii daqiiqaba uu hal qof dhimanayo dadka yani coronavirus ku dhacay ama cudurka corona uu ku dhacay awgeed dadkaas oo aad u tira batay waxaynu eegaynaa It seemed like the perfect place for COVID-19 to run wild. India's health infrastructure is underdeveloped, urban population density is high, and the country already suffers from high rates of other diseases like TB and malaria. In the first wave, Prime Minister Modi acted swiftly, locking down the country and masking up. A relatively small aid package. waxa uu ka warramayaa wadanka India kan waxa weeye ra'iisul wasaaraha wadanka India cunsuriga waxa uu markaasi maaragtay ku talaabsaday inuu wadanka lockdown iyo wax geliyo ayuu yiri ujeedadeedu kan maaha laakiin waxa weeyaan wadankii dhibaato weyn baa haysata afartii daqiiqaba qof baa dhimanaya maalintay ugu yar tahay yani wax ka badan 3,000 oo qof baa dhimanaya per day maalintiiba arrintaasi dadkan oo yani u badan majority-ga waa yani waxa la yiraahdaa waa wadamada wadanka labaad ee adduunka ugu dadka badan leh Hindiya waxa lagu tilmaamaa inay dadkoodu gaarayaan 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof waana wadanka ugu dadka badan xagga muslimiinta ugu tirada badan caalamka ay ku nool yihiin inkasta oo ay ka yihiin minority waxaynu eegaynaa hadda maadaama India waxaas ay ka socdaan bal waxaynu eegaynaa muuqaalkan insha Allah biidnillahi kariim ninkan halkan ka muuqda Allahu akbar waxa la soo riday waa sanam kamida asnaamtii ay caabudi jireen Hindidu ninkii caabudi jirayna waa ninkii Allahu akbar lahaa waxay ogaadeen sanamyada tanu inaanay waxba taraynin oo aysan waxba ahayn sidaa darteed dad badan oo kamid ah ayaa halkaasi ku qaatay ma garanaysaa diinta islaamka ee xaqa ah Allahu akbar ninkan baa kamid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير جدا من امبارح للنهارده في الهند دخلت الإسلام بصورة غير طبيعية خوفا من فيروس كورونا واللي فيروس كورونا عامله فيهم ومش اننا waxa uu leeyahay dadka kan يعني dad badan oo iyaga kamid waxay qaateen diinta islaamka isagoo soo qaatay muuqaalkaasi oo maaragtay runtii wadanka Hindiya maaragtay oo kuwa badan oo kamid ay maaragtay muslimeen sababtay u muslimeenna ay tahay baqdin ay ka qabaan yani cudurkan coronavirus uu saameeyo واضح من الفيديو ده انهم وقعوا تمثال كان بالنسبه لهم اله او حاجه كبيره وقعوه هم فرحانين فتعالوا نشوف الفيديو اللي بعده kuwan waxay googoynayaan sawirradii sanamyadii ay caabudi jireen ay googoynayaan maaragtay ay jarjarayaan waxba way u tari waayeen kana way u qaban kari waayeen sanamyadu dadkii caabudi jiray baa ay dayaceen آخرنا سرعة سريع ماركتي ضيعيا waxa aynu markaa uga sii gudbinaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurka corona inaga isdaldo dadka muslimiinta Allah ka badbaadiyo حويان مقالة رنتي يعني مال والبمات والبيان تكوين بالهندي كماركتي ماركة وماركتي قف ودور كان مقرن ساي عالية هامبا وحي عن مسلمين هايني يعني دخل كود وحويان إن مركا هلكا كان نواد ركتان هو ماركتي سنميدو دي يو وحي أي هايستين ودنا تشبيني واي هاي وين كسي قد بيننا हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है और उसी पर हम सारी दुनिया को
खाली भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं। لا إله إلا الله موقال كاسبندوني لا إله إلا الله محمد رسول الله के झंडे के नीचे ला सकते हैं। يعني موقال كاس وحا وكمد يهي موقال هذا ويجن نعي ماركتي كسابسن كورونا فيروس और जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं, لكن ضد هو بكفى पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम साफ शब्दों में कहते हैं रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुसलमीन नहीं। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها معنينا يا نبي الله محمد سبحانه وتعالى لو ما صدر المسلمين تقول النبي محمد لكن واحد الله صدري يعني ضد بشر كأوردن بشرية أوردن इसलिए इस्लाम खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का मजहब है। और इस नाते से انت اسمعيني قفلا بفليا مخال كاسي मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी, मैं बहुत मशकूर और आपके इंतजामात से बड़ा मुतासिर हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को कत्लो गारत हुई, तो सबसे पहले सिखों को मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है। मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी। मैंने सोचा था ये इस्लाम है, लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग سنبيدودي عقف بي مريين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مركا لباتوين كاس أردن أيام ميشا كرد माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी। मैंने सोचा था ये इस्लाम है, लेकिन अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में waxaan runtii rabay muuqaalka kale inaynu aragno ee ay cagafta marinayaan cagafta markay marinayaan ma arko, laakiin waxaan arkay anigu indhahayga aan ku soo arkay iyagoo cagaf marinaya ma garanaysaa sanamyadana waa kuwii ay u sujuudi jireen oo caabudi jireen oo maaragtay runtii waxba u qaban waayey ilaahay subxaana watacaala un baana wax qaban karaa muuqaaladooda intaas baynu iskaga soo koobaynaa waxaa markaasi arrintaasu ayna xasuusinaysaa oo maaragtay ay ina xasuusinaysaa maaragtay waxayna xasuusinaysaa wixii la odhan jiray yani waxayna xasuusinaysaa asnaamtii ay caabudi jireen dadyawgii ma garanaysaayey hore intii aan ma garanaysaayey nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam la soo dirin ka hor iyo xilliyadii nebiyadii kale nebiyullaahi ibraahim ma garanaysaayey iyo ambiyadii kaleba dadkoodu waa kuwii caabudi jiray asnaamta waa kuwii caabudi jiray hal tusaalena waxaa inoogu filan ba nebiyullahi ibraahim oo keliya baa halka tusaale aynu kasoo qaadanayna insha allah intaasaynu kusoo dhammaynayna ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku yidhi walaqad aatayna ibraahiima rushdah waxaanu siinay nebiyullahi ibraahim hanuunkiisii min qablu hadda ka hor ayaa la siiyey rushdigiisii ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu kale uu yidhi وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون محيطها أصنام تنأضل فلذان أد وحوي دي سنيسان قالوا وجدنا آباءنا والد كيانو كسو قارن بيراهدين لها عابدين إيقو عابدية قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وحاو يري آدينك إيو والدين تيمبا يعني الضلال باكو سبنايدين أما بادعة أما ما قرنا يصدق لونسن باهيدين قالوا أجئتنا بالحق ما حق بعد نورات بيكون هذين أم أنت من اللاعبين مسود نبو كفتا ميسان نبو عيار يسان وحاو هذا الكيبوسي وضي قال بل ربكم رب السماوات والأرض ورانون عيار يمي هي ربكين وربك أبو ري سماوات كيبلولك الذي فدرهن أبو ري
وأنا على ذلك من الشاهدين أنا وانا أرنتاس أيان قرصنا هاي وأن ماركتي إذين عدينا يا markay ay doodaasi iska dhamaatay ay maaragtay ka tageenna watallahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin markaad jeesataan ayuu maaragtay yidhi waxaan maaragtay dhagar aan u maleegayaa ma garanaysaa asnaamtiina fajacalahum judadan ilaa kabiiran lahum waxa uu ka dhigay burbur markaasi markii ay xafladoodii aadeen ee ay ka tageen ayuu dhammaanba wuu laayay ilaa kabiiran lahum kii ugu weynaa mooyaane lacallahum ilayhi yarjicuun yacni si ay maaragtay ugu soo laabtaan oo kaa u arkaan markay arkeen way saseen way argagixeen oo wixii ay caabudayeen uba xasaarayeen waqtiga ku luminayeen habeen iyo maalinba u soo jeedeen ee ay caabudayeen ilaahay sokadiis ayay arkeen qaaluu man facala hada biaalihatina innahu lamin adaalimiin warwaa ayo waxaan ku sameeyey ilaahyadayadii inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun bal qaaluu waxay yidhaahdeen markaa samicnaa fatan yadkuruhum waxaanu maqalay wiil ka hadlaya oo ilaahyadan wax ka sheegaya yuqaalu lahu ibraahim oo ibraahim lagu magacaabo ama la odhanayay qaaluu fa'tuu bihi calaa acyuni nnaas waxay yidhaahdeen markaa waxaad keentaan indhaha dadka horteeda keena lacallahum yashhaduun si ay maaragtay ugu markhaati furaan waa la soo qabtay nebiyullaahi ibraahim qaaluu waxay ku yidhaahdeen a anta facalta haada biaalihatina yaa ibraahim war ma adigaa ninka intaad jejebiyey sanamyada u maaragtay dabadeedna faashkii halkaa garabka u sudhaye maaragtay ku yidhi maxaan ku idhahdaa isaa u jejebi saa u galay ma adiga sidaas bay ku yidhaahdeen qaaluu a anta facalta haada biaalihatina yaa ibraahim ma adigaa sidaa ku sameeyey ilaahyadayada qaala wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum war waxa sameeyey kan weyn baa sameeyey haadaa ee kan ah fas'aluuhum in kaanuu yandiquun bal hadday hadlayaan wax weydiiya sanamyadan waaweyne meesha idin yaalla sanamkan weyne meesha idin yaalla hadduu hadlayo bal isaga wax weydiiya farajacuu ilaa anfusihim nafahoodii bay dib ugu noqdeen faqaaluu waxay yidhaahdeen innakum antum zaalimuun war idinka ayaa maaragtay dulmi falayaala ee orda iskaga taga ninka kan ثم نكسوا على رؤوسهم مدحي مركا ما garanaysa ay foorariyeen laqad calimta ma haula yandiqu wa isfakirino tay madaxa foorariyeen oo fikireen oo arintu ayaan fariir ku noqotay ay ilaahay war waad ogtayna waxaanu hadlay qaal wa marka wuxuu yiri ibraahim afata'buduna min duni illahi ma la yanfa'ukum wal ma waxa caabudaysaan wax aan yani idin anfacaynin shay'an idinka anfacaynin ولا يضرهم أو أن مركتي ضرنا إذين جيسان كريم أف لكم ولما تعبدون وحمان لهذا إذين كأي واحد عابدان من دون الله أفلا تعقلون وبيدا عقل لهين مركز كذب والله تشري نبي الله إبراهيم وحل يري محي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وحيرادين هل الجبو ورنيك الضب هلا السلبة يري oo maaragtay waa kuwii dabka weyn shiday ee aadka u weyn ee kutubta oo dhan lagu sheegay in kuntum faaciliin haddii aad maaragtay arrintaas samaynaysaa oo u hiilinaysaan ilaahyadiina dabkii bay shiteen nebiyullaahi ibraahimna way ku tuureen markaas kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim waxaanu ku nidhi dab yahow waxaad noqotaa nabadgelyo iyo ma garanaysaa qabow waxaad u noqotaa nabadgelyo iyo qabowba waxaad u noqotaa calaa ibraahiima ma garanaysaa nebiyullaahi ibraahim waxyaabaha ilaahay sokadiisa la caabudayo nebiyullaahi ibraahim qisadiisaas oo qura maaha ee qisooyinku waa uun tusaale tan nebi ibraahim
waxaynu maanta caalamkan inaga oo joogna aynu arkaynaa dadka sanamyada caabudaya ee maaragtay caabudaya sida waddanka India sanamyada caalamka ugu badan India iyo China iyo dhulkaas lagu caabudaa inta kalena waa kuwan saliibka caabuda ama karooska waxa loo yaqaano caabuda ee maaragtay sal ay yiraahdaan nabi ciise la salbiyay oo caabudo waa kuwa yiraahdo waxaas oo dhan waxa weeyaan waxa kale oo iyaguna soo gelaya cid walba oo makhluuq wax la abuuray oo makhluuqa hadduu doono haba noqdo nabi sida nabiyullaahi ciise oo kale ay u caabudaan ama ha noqdo malaa'igta kamid ama ha noqdo maxaan ku iraahdaa wax kale oo ilaahay ka soo hadhaan noqdo cid walba oo caabudaa waxay caabudayaan waxa weeyaan waa baatil hindiyana baadilkaas waxaynu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay ka soo hanuuniyo masaajidii ay gubi jireenna in ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda ku dhiso waayo waa kuwii masaajidada intay dumiyaan u bedeli jiray meel lagu caabudo sanamyada lagu caabudo laakiin hadda waxaynu markhaati ka nahay oo aynu ku arkaynay fiidiyowga in ay soo dumiyeen sanamkii ay ku caabudi jireen meeshii insha allah biidnillaahi kariimna waxay u bedeli doonaan masaajid insha allah biidnillaahi kariim masaajid bay u bedeli doonaan kuwa badan oo ka midihina waxa weeyaan cagafyo waxay jiirsiinayeen oo badda ay qaarkood ku gureen sanamyadii guryaha u yaalay ee ay caabudi jireen waxaana keliya yani baqdinta iyo casharka nimankaasi macnaha la kabisiiyey ee ay wax ku qaateen waaba dad caqli leh haddayba sidaa wax ku qaataane waxa weeyaan xanuunka corona viruska marka waa xikmad ilaahay wallahu casiisul xakiim intaas baynu kusoo gabagabaynaa hada wabillahi tawfiq wasala allahuma calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيشر قرية إن شاء الله بإذن الله كريم